xorriyadda saxaafadda caalamka ayuu hoos u dhac ku yimid xitaa dalal muddo dheer lagu tirinayay in saxaafadoodu ay xor tahay. urur madax bannaan oo kor kala socda xorriyadda saxaafadda caalamka ayaa warbixin uu dhawaan soo saaray wuxuu ku sheegay inuu kordhay cadaadiska saxaafadda madaxa bannaan ee dalalka bartamaha Yurub iyo America. Raymond Taylor ayaa warbixintan New York ka soo diray waxaana soo jeedinaysaa Sahre Ciidlanoor. siyaasiyiin ku caan baxay inay wiiqaan madax bannaanida saxaafadda ayaa ku soo badanaya hogaaminta wadamada qaar, balse dimuqraadiyadda aan cagaha adag ku taagnayn iyo xeelado cusub ayaa sidoo kale abuuray xaalad degdega. sida lagu sheegay warbixintan cusub ee warbaahinta iyo madax bannaanida saxaafadda ay kaga hadlayeen ururka Freedom House ayaa lagu sheegay khatarta been abuur la xidhiidha galaangalka iyo saamaynta Shiinuhu ay ku yeelanayaan qaaradda Afrika, iyo sidoo kale inay jiraan warbixino la soo faafreebay amaba la soo googooyay oo warbaahinta loo gudbiyo. Sarah Rubaki oo ah cilmi baadho ka tirsan hay'adda Freedom House kana mida guddiga cilmi baadhistan soo saartay, waxay sidan u samaynayaan in fariintooda ay ku gudbistaan iyo inay helaan hay'ado warbaahineed oo u dhega nugul amaba la saaxiiba oo si hagar la'aana u baahiyo fariimaha ay dirayaan. sidoo kalena mulkiilayaasha warbaahinta qaar iyo diblomaasiyiin ayaa faafreeb ku sameeya wararka ay warbaahintu baahinayso. warbixintan Freedom House ayaa lagu sheegay in wejigabaxa saxaafadda lagu samaynayo ay ka jirto guud ahaanba caalamka, isla markaana ay dhowaanahan sii xoogaysanayso xaaladdu, sida lagu hayo dhacdooyin kala duwan oo la diiwaan geliyey. xadgudubyada saxaafadda lagula kaco ayaa loo kala qaybiyey 2 jiho, iyadoo la sheegay in Yurub iyo Aasiya iyo geesta kale waqooyiga ilaa bariga Afrika ay madax bannaanida saxaafaddu hoos u dhacday 9% ilaa 11%. marka laga soo bilaabo sanadkii 2014. inkasta oo wadamada Yurub ay ka mid yihiin meelaha ugu roon xornimada saxaafadda oo qiyaastii 5 wadanba 4 ka mid yihiin ay madax bannaanida saxaafadda ilaaliyaan, haddana waxaa muuqata celcelis ahaan in hoos u dhac weyn ku yimi madax bannaanida warbaahinta, taasi oo lagu qiimeeyey 8% inay hoos uga dhaceen heerkoodii hore. Sarah Rubaki ayaa sheegtay in Mareykanka oo ah dalka ugu horeeya xagga dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka sharciga ay ka dhacaan xadgudubyo ka dhana shakhsiyaad iyo warbaahin gaara. warbaahinta waaweyn runtii way iska caabiyi karaan weerarada ku socda, waanay soo bandhigi karaan xogo lagula xisaabtami karo hogaamiyeyaasha, balse walaacaanu ka qabnaa waa inay isbedelaan oo ay adkaatay inay heerkoodii hore dib ugu soo noqdaan. warbixintan ayaa wadamada Suudaan iyo Venezuela ku tilmaantay meelahaatan aad u xasaasiya warbaahintu ku shaqayso, waxaana Ms. Rubaki intaasi ku dartay in warbaahinta bulshadu ay ku wada xidhiidhaa ay kaalin weyn ka qaataan helitaanka warka iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda.